السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta ku xidhan youtube-kan caalami official. haddii tahay markii koowaad aad soo muuqato magacaygu waa Cabaas Jaamac Cali, waxaan ahay macallin dhiga luqadda Englishta. maanta halkan waxaan ku qaadan doonaa cashar kaasi oo ah alfabeetka luqadda Englishta qaybtiisii labaad oo iyana ku jirta alfabeetka. ugu dhacda ardayow inaad kala garan weydo mararka qaarkood sababta xarafka C mar loogu dhawaaqayo. oo imika halkan waxaan ku arkaynaa C tusaale ahaan waxaan ka dhigayaa oo kale sidaas oo kale centimeter centi waaya C baan ugu dhawaaqay C S oo kale centi ABCD-dana waa xarafka ABC waa xarafka saddexaad C wey oo sabab ay u noqotay markan kaad oo noqotay taas ayaad ku ogaan doontaa haddana qaybteena labaad ee soo dhawow ardayo. waayahay inaga soo baabi markaa waxaan horan inaga soo baabi qaybtan waxaad ku ogaan doontaa sababta ay xarafka loo yaqaan C uu marna u samaynayaa dhawaaqa maxay ka u samaynayaa marna uu samaynayaa dhawaaqa maxay S oo kale S C cycle centipede C uu wada samaynayaa. waayahay sidoo kale waxaynu ogaan doonaa ardayo inaynu xarafkan aynu sigana kala ogaano mar wuxuu samaynayaa isaguna maxay ga oo kale tusaale ahaan waxaan doonayaa inaan idhaahdo government wata ga baan ku bilaabay waxaan idhi government waa ga haddana waxaad arkaysaa ardayow isagoo mararka qaarkood sidee ah isagoo la odhanayaba waa maxay waa ja baa loogu dhawaaqayaa ja ahoo kalo wata waa tusaale ahaan generous marna waxaa loogu dhawaaqay baan kudhi ga marna ja ayaa loogu dhawaaqay. xagee buu ka yimi su-aasha isweydiinaysaa waxay tahay sidee baan ku kala garanayaa markaan ga ugu dhawaaqayo iyo markaan ja ugu dhawaaqayo sidoo kale markaan ka ugu dhawaaqayo iyo markaan C oo kale ugu akhrinayo. halkan ila soo fiiri markaa ardayow halkan ila soo fiiri qaacida siinayaa kaa caawin doonta meel kastoo aad ku aragto C ama K ugu dhawaaq ama C ugu dhawaaq labadaba ku kala sheegaysa tad ugu dhawaaqayso sidoo kale markaad ga ugu dhawaaqayso iyo markaad G ugu dhawaaqayso ku kala sheegaysa qaacido ayaan ku siinayaa. qaacidada ina soo eeg markaa warada meel socotaa xarafka C haddii ay uu raaco xarafka C plus haddii uu raaco haddii aad u fiirsa halkaa I iyo plus maxay y iyo plus y intaas hadduu raaco waxaad ugu dhawaaqaysaa hadda aad ugu fiirso waxaad ugu dhawaaqaysaa maxay C baad ugu dhawaaqaysaa. intaa wixii ka soo haro dhanna K baad ugu dhawaaqaysaa K baad ugu dhawaaqaysaa. sidaasi la mid ah G-duna iyadoo waa sidaasi la mid ah soo fiiri xarafka G mar kasta oo uu raaco I iyo E plus loo geeyey maxay y loo geeyey waxaad ugu dhawaaqaysaa maxay iyana ja oo kale waxaad ugu dhawaaqaysaa maxay ja. intaa wixii ka soo hadhana ga baad ugu dhawaaqaysaa intaa soo qoraad eeganaysa haday ku xigto. ila soo fiiri markaa halkan ila soo fiiri ardayo markaa halkan soo fiiri markaa qaybta tagasna afur qaybta markaa G-da ayaynu isla eegaynaa G-da ayaynu isla eegaynaa. halkan waxaanu dhigaynaa kaasina ku bilaabaynaa G waxaan ku xejiyey I baan ku xejiyey A baan ku xejiyey T baan ku xejiyey T baan ku xejiyey maxaan ku akhrinayaa taa maxaa leeyahay chained ay sababtu tahay ay baa meesha taalan chained baan oranayaa hadda meela socotaa aan ku taxo markaa iyagoo fara badan waayay G Y M baan oranayaa G baan ugu dhawaaqaya ay sababtu tahay xeerkii baan raacayaa maxaa ku xigta wayba hadday ku xigto mar kastoo inta aan kuu sheegay ay ku xigto G jaabaad ugu dhawaaqaysaa intaa wixii ka soo hadhana gaabaad ugu dhawaaqaysaa. waayay aan hoosta degno markaa
halkan ila eeg hadana cage ay sababtu tahay halkan jiida waxa ka dambeeya e no inaga marba intaas oo dib ku xigta jiida jaawada ugu dhawaaqaysa baan ku hadda meela socota sidoo kale aynu sii daadegni tagas noo soo waayahay ereygan hadana gentle gentle maxaan ugu dhawaaqnay jacbaan ugu dhawaaqay baa inooga xigta inagu kuwan baynu fiirsadayna kuwa kale intaa ka soo haray iyagu way farabadan yihiin oo sababtu ay tahay intaa wixii ka soo haray ku xigtaba gabaad ugu dhawaaqaysaa tusaale ahaan waxaad oranaysaa hadda waxaynu soo arkaynay government aynu soo arkaynay Soomaa kuwa kale oo farabadan oo aad ga ugu dhawaaqaysa baa jira oo iminka tagasino soo khur GR baa suimi grow waa gabaad ugu dhawaaqaysa waayo xeerkeennina ma jirto intaas midna ma raacsana haddana sii eeg tan kalena eeg markaa tan kalena maxay noqonaysaa iyana waa tan markaa iyana waa waa global ja iyo elbas ku xigta intaas miyay ku xigta intaas unbaad arday u eeganaysa waxaad isha marinaysaa waxay tahay warjiida hadday ka dambeeyaan 1 2 3 saddexda xarfaday ka dambeeyaan ja ugu dhawaaq hadda meela socotaan siina saddexdaas hadday ka dambeeyaan waxay ugu dhawaaq baan ku wixii ka soo haray intaana kaabad ugu dhawaaqaysa iyadana tusaale ahaan halkan noo soo dhig waxaan nidhi car baan nidhi sidoo kale waxaan nidhi cat baan nidhi intaba xeerkii markaan eego kuma xigto siida waxa ku xigta miyay ku jirtaa may ka ugu dhawaaqo dabay saasaad ku soconaysaa aynu soo eegno markaa siidana haddaba iyadoo fara badan siidana aynu soo eegno markaa tagas noo soo fur waayahay way baan ku xijinayaa way ayaan ku xijinayaa bal dhawaaqay samaysaa in eegno cycle was bay samaysay yacni baan ugu dhawaaqay cycle ay sababtu tahay xeerkii ma raacayaan waa kan xeerkii way baa ku jirta markaas baan ugu dhawaaqayaa ii soo fur haddana waxaan oranayaa baan taabanayaa baan taabanayaa ll baan keenayaa sel baan ugu dhawaaqayaa ka warrama ardayga haddaan sidan idhaahdo oo aan taabto CAT intaa taabto waxaan oranayaa setach baan oranayaa mayadhe xeerkii kuma jirto oo siida hadday ka dambayso saddexdaasunbaa ku idhi markaa waxay noqonaysaa kaabay noqonaysaa aan sii wado kuwa kaloo fara badan waayahay aan sii wado cinema waayahay cinema civil war oo kale dagaal sokeeye waayahay haddana aan sii wado baan qorayaa taasaan qorayaa halkaa eego ardayo adigu waxa ku xiga unbaad eeganaysaa mar walba siida ay baa ku xigta hadday ay ku xigto maxaan ugu dhawaaqaynay siida waa taas siideedana ugu dhawaaqaynaa markaas sida saxa decide halkaa waxa ku eeg casharkii qaybtiisii labaad ABCD amase vowelska ayaan xooga ku saaraynay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.